bismillahi raxmaan raxiim waxaan runtii maalmihii lasoo dhaafay booqasho nala joogay ra-iisul wasaaraha iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo waxaan aad uga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa howlihii badnaa ay ka qabteen puntland muddadii ay joogeen oo runtii wasiiradii la socday ee dhammaan wasaaradihii dhigooda halka joogay shaqooyinkii hore ay wada wadeen iyo shaqooyin cusub oo runtii ay isla qorsheeyeen sida u socon lahayd ka wada qabtay fursad badanna aan u helnay inaan xaaladda waddanka iyo waddanka siduu yahay iska wareysanno waxaan rajaynayaa safarka ra-iisul wasaaraha oo hadda ku sii wajahan galmudugna waxaan u rajaynayaa inuu ilaahay nabad ku geeyo howlaha shaqo ee qaran uu wadana uu u fududeeyo puntlandna waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay siday kaalintii ku lahaan jirtay soomaaliya iyo dowlad dhiskeeda inay halkaa ka sii wado waxaana ku rajo weynahay xaaladda dalku uu marayo inuu meel ka sii fiican oo wanaagsan uu gaari doono haddii ilaahay idin ka dhigo muddada uu ra-iisul wasaaraha golaha xukuumaddiisa ay wadaan howlaha waana ku faraxsannahay ra-iisul wasaaraha horena waa u soo dhaweynay haddana waxaan rabnaa inaan sii sagootinno marar badan oo kale inuu soo noqdo waan rajaynaynaa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ra-iisul wasaaraha iyo waftigiisa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah marka hore waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa soo dhoweyntii qiimaha lahayd iyo sharafta lahayd ee uu ii soo jeediyey madaxweyne Siciid Dani madaxweynaha puntland madaxweyne ku-xigeenka golihiisa wasiirada xildhibaanada aad ayay u mahadsan yihiin waxaan mar labaad iyagana rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabka puntland gaar ahaan shacabka ku nool caasimadda Garowe oo ah shacab xaqiiqdii meel weyn igaaga yaallo aniga ka ra-iisul wasaare ahaan waa shacab ii muujiyey soo dhoweyn iyo farxad iyo reereyn aadna ii soo dhoweeyey intaa haddaan kaga gudbo mahad celinta qorshihii aan halkan u imid iyo howlihii aan u imid alxamdulilah waa laba qaybood ay ka koobnaayeen mid ah howlihii xukuumadda ka waday sida caadiga ahaa iyo xiriiradii ka dhexeeyey dowlad goboleedka puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka ahaa sii xoojintiisii ayaan halkan u imid wax badanna way noo qabsoomeen inta ugu badneedna way noo qabsoomeen haddii ahaan lahayd waxbarashada cadaaladda iyo dastuurka guulo badan oo waaweynna waa ka gaarnay alxamdulilah taasna ilaahay ayaan mahad iska leh waxaana sidoo kale uga mahad celinayaa madaxweyne Dani oo kaalin xoog leh ka qaatay sidii howlahaas ay noogu fududaan lahaayeen qorshaha labaadna imid oo ahaa tii doorashada meel baan isla soo gaarnay waxna waa noo dhiban yihiin waxna bilaabay noo ahaayeen insha allah mar dhowna wixii noo dhinnaa waa dhammaystiraynaa dadkana shacabkana waxaan leeyahay soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka puntland isdejiya qalbigiina khayr u sheega waa la doogaysan ayaan la dacroobin wax badan ayaana noo dhiman insha allah waddadii dheereedna cagta waa saarnay dhammaan shacabka soomaaliyeed sidoo kalena hadda waxaan ugu dambeyn u mahad celinayaa madaxweyne Dani oo hadda igu sagootinaya aeroboortkii Garowe ee jenaraal maxamed abshir marka waa mahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu